السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرن معجزة وإلهي سبحانه وتعالى تصي ولكن أحمد أيان ربنا إن آنو إذن لو ذاقنا أرن كاسي وحكا لماها وحكو دعي ولكن حانون باصوها ليلي اختربو تجي وحلقو قلين باقليسا قلين كاغا مركا الله السمين أيوه وحالله بدين أياه إن قلين كاذن كبد بادي لكن سإلهي سبحانه وتعالى وحكومة نيستي إيمان وحا إلهي سبحانه وتعالى هلاشي دعو إن وكعل عليو صبحي وكعل عليو هبينكي وكعل عليو إلهي سبحانه وتعالى وحو نتيجة كردقي إن مركي وكون نقضي دختركي يكون نقضي وبارتانا ذي لمريي إن أي نقضي وحي يودن كم جيران أي نقضين وإلهي سبحانه وتعالى كشافيي هذه أي ضاونا أنا وحرم لأن كفى إذا سنة دعاداس إلهي سبحانه وتعالى كشافيي ولكن waxaan ku soo dhaweynay walaalkeen Axmed marka hore soo isku keen baro horta walaalkeen Axmed waa kuma ahlan wa sahlan wa rahmatullahi walaalkeen assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dhamaan walaalaha ku xiran walaalkay Sheekh Maxamed Jaamac aad baa salaamantiin marka hore marka kale toona hadiyadan ay idin soo diri doono waa mid adiga ku anfici doonto anagana anfici doonto anigu ninkan walaalkay waxaan isku nahay dad walaal Ilaahay dartiis isku jeclaaday khayrkan isla jeclaaday alxamdulillah magacaygu waa Axmed Jayta Suufi insha Allah waxa waaye waa inta badan waa taqaaniin inta ku xiran walaalkay intaan aqoonin barasho wanaagsan waxaan rabaa marka inaan horta qof walba waa amalkiisa iyo iimaankiisa ma sha Allah ay ku xiran tahay صح bishii hadda dhamaatay sideedaad ayaa waxaa la kulmay dhakhtar صح dhakhtarkii markaan u tagay wuxuu dhahay warniyahow xanuunka ku haayo meel hadda ka hor qaliin lagu sameeyay wuxuu dhahay xanuunka ku haayo ma garan karno laakiin haddii meeshaasi qaliinka hor lagu sameeyay dhanka wadnaha dhinaciisa xigto haddana waxaa laga yaabaa in xanuunkaasi 50-50 oo noqdo oo xanuunka mataqaanaa ii sheeg ama waa dhimo kartaa ama waa noolaan kartaa oo noloshaadiba qiil baa la geliyay qiil la geliyay Allahu akbar markaas waxaa ku dhahay wuxuu dhahay marka laba isbuuc ayaa fasaxaysataa inaad ku dardaaranto ama aad dadka mataqaanaa ay kugu dhow aad u sheegto wayhaan ku yiri waa ka soo tagay marka gurigayga ku soo laabtay alxamdulillah waxaan bilaabay waqtigaasi horta quraanka oo anigu marka hore xaafid ahay inaan quraankii labada isbuucba aan ku dhameeyay laba jeer Allahu akbar ma sha Allah waxaa ii dheeraa marka ducadan aadka u qiimaha badan oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu igu badbaadiyay idinkana qofkiina xanuunsan aan jeclahay inaan maanta la wadaagno oo aan u sheegno inay qiimo leedahay ducadaasi duca kale ma ahan waxaan sameyn jiray marka صح salaadi subax marka insha Allah ta'ala si fiican u dhageysana ducada si ay u xifdina insha Allah ta'ala waa ku soo celin doonaa inta lagu soo qori doonaa marka ku soo qori doonaa biidnillah ducada waxaan sameyn jiray marka xilligii salaada subax marka dugto صح oo adkaartii iyo wixii aan akhriyo kadib aan fariisan jiray ما شاء الله ducadan akhri jiray ducada ku celin ha la cadad la cadad ma xisaabin jirin waa iska wadi jiray ما شاء الله galabkii casirkii markaan dugto ilaa salaada maqribka inta u dhaxaysana waan akhrisan jiray ما شاء الله ducadaas waan ku celcelin jiray ما شاء الله habeenkii saqdi dhax marka inta salaatul leel u soo kaco oo quraankii aan akhrinayay xilligaas صح waxaan sameey jiray marka quraankii dhameeyo ayada ku duceysan jiray ما شاء الله ducada hada insha Allah ducadu waxay tahay marka waa duca yar oo kooban oo aan badnayn Allahu akbar Allahumma ishfini صح birahmatika ay biamrika صح biqudratika biquwwatika ya rabbal alamin اللهم اشفيني إله الشافي وحي شافي برحمتك حريستا بأمرك أمرك يا ربي بقدرتك أود هذا إله يشافي بقوتك إله أود هذا يوسف والله يا رب العالمين رب العالمين تشكره والدعاء داوكو ما شاء الله حنتك يا بحينين صح دبات أنك أركينين صح ست دقيقة لو جوابي دون إن شاء الله تعالى أريس كدريمي دونتو هدات كنسر لحن وصنتهاي هدا محلها إن ديكر إيه سكر إيه وحول بإيه كهايان عذر والبؤ كهايو دعاء سكاكا فينا الله أكبر دعاء وحنا قدرتا إيمان إيمانك دعاء وآخر سنة يا لكن وين وقفك مسير هاي إن حنونك أوكينو إلهي سبحانه وتعالى إلهنا قاذك إلهنا قاذك أنا مركي وقال إنه دكتورك هاي معناها إيش كان حنونك 50-50 هاي
horta alxamdulilah qof kale ma aaminsan yaa wax walba keena ilaahay subxaana watacaala yaa wax walba biilaahay marka waxaa dhacday waa soo gabagabaynaynaa ducadii marka intaasi sitimaankaasi labadii sitimaanba aan kamilayo oo aan akrinayay dhakhtarkiyaa ku laabtay jimcihii hadda lasoo dhaafay markaan tagay iskaanaa lay diray dhiigaa lay qaaday candhuuf wax walba alxamdulilah maxaa la kulmay dhakhtarkii oo dhahay maxaa isticmaashay daawo noocaya isticmaashay wallahi kelmad kale ma ugu jawaabin waxaa ku dhahay daawona ma isticmaalin waddankan aan joogno daawada dhakhtar asoon ku qorin ma qaadan kartid marka wax kale maanan isticmaalin ducadaas oo keliya iyo aayaadka qur-aanka ilaahay oo qalbigeyga ku jiray iyo iimaanka oo ilaahay aaminsanaa ilaahay igu shaafiyey marka waxaan jeclahay adiga inaad ka faa'iidaysato aana sii gudbisid walaalaheena usii gudbisin insha allahu tacaala waxaa lagu yidhi 2 isbuuc oo keliya baad haysataa ee dadkaaga la soo dardaaran balse ma niyad jabine ilaahay subxaana wa tacaala iimaan buu siiyey oo ducadan u akhristay ilaaha ku xirnaa ducadani waxay tahay halkan aan kusoo qori doonaa insha allahu tacaala allahuma shfiinii برحمتك بأمرك بقدرتك بقوتك أي إلهي سبحانه وتعالى كجبت بادي حنون فربضن قليل فربضن إلهي سبحانه وتعالى هبرك يا ولالكين عافماتك الله زياديو لما أنتين وسلامتهين وحاج على سنة يعني في كليبك أديات وقيمها بدن أرو مركو ويشة يا ولالكي ولا قيراد وحال أمته أن لو ذاقنو سأجر أين وجهلنا أو حلقة موقف ما أنت يعني